مشارح تاجر حركة حديبان الدولة فدرالك الصومالية لبكون كل لبكون الشن يلبعتها أي ما تسوي اللي جسور مجرد الجروي عاصمة بنتلاند كدي قوفقارا وحقرها اللي برشوا انت هالكاس يكسور بويسي لا تدوينا وسكوش رقيبها كلا دوين برشوا يا قوفقارا ودولة كجرو كجور تجي مشارح حديبان دولة فدرالك الصومالية جامع حسن خليف هذول كلمتي سكوشور دوين تايا هالكن روينا وكيد هذا جامع حسن خليف كسور دو جروي كل سور بدا ميديا هذه بعض ما سنتهاي waxaan rabaa inaan mahadnaqo dhammaan dadkan sharafta leh sida qiimaha ay u soo dhaweeyay garoowe mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aad baad maasantiin waqtigiina qiimaha aad soo horteen ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo kal hore waxaad ahayd musharax isu istaagay leelinta hogaanshada hogaanka dawladda Puntland mar kale waxaa tahay xildhibaan isu istaagay inaad mar kale hogaamiso deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn fariinta halkan aad ugu dirayso ama hergaha tama bulshada Sool Sanaag iyo Cayn maxay tahay horta waxay naga maqan baa wax weyn qaran Soomaaliyeed oo shaqeeya iyo dad Soomaaliyeed oo socda marka in la kacaakufo waxay la tahay inay tahay dow marka meeshii geela loo aroori karo naq iyo roob lagu furo baa qofka xoolo dhaqatada ama geela yaqaana uu aada marka damacaas faraha badan ay aad moodo runtii soo noqday waxaan qabaa inuu yahay damac qofka Soomaaliyeed ولي حق بعد قوبكاس أنا رنتي يعني كوشنا إن شاء الله بإذن الله كريم الله إنه تامرنا دولكي ديامدي إن شاء الله سووا صعبا أتكارجنا حالات درسنا إن كستو أنا كم قلنا قلبي هان مركز إن شاء الله وسويه ورا هذا بنا دبنا سووا صدق إن شاء الله بإذن الله كريم جامع حسن خليف ودور جور نقضي مرشح مدحوينه oo rajul qarana oo hadii uu xilka uu rabo ama uu hanin doonayo hanto u qabanaya qaran ahaan iyo beel ahaan ba muxuu ahay wax weyn tari karaya aad baan ku soo dhaweynaa si kale iyo laaba waxaan ka cunnahay inay noo diideen inaan aeroboortka dhexdiisa aan tagno maxaa yeelay waxa yiraahdeen nidaam baa ka soo baxay halkan dibadda qofkii la soo dhaweynaya oo ku salaamaya sida ay yeesho dhalinyarada iyo wiilasha iyo gabdhaha iyo odayaasha aan loo kala xaririntii wali qaar badan oo baabuurta ka soo tagtay baa jiray intaas waa ka sii badnaan lahayn waa ku soo dhaweynaynaa waxaan u dirayaa fariin kursiga aad u sharaxan tahay inaan muxuu ahay cid kaleeto soo hunguriyeen ama ayan moogtahay soo agtaagin maxaa yeelay dhowr goobood murashax madaxweyne noqotay maanta kii mid ka sii hooseeya oo xildhibaan qarana aad muxuu ahay doonayso in la kugu guuleeyo adigana ma cid kaleeto oo moogtahay yani soo hunguriyeysa ayan jirin baan ugu dirayaa baaq beesha muxuu ahay kursiga iska leh waan rajaynayaa bacdama uu garaadkii iyo dad badan halka ka joogaan fariintaydaasna ku doonaysa in la tixgeliyo oo mudane jaamac iyo marakan mudnaantaas maxaa yeelay waa nin wax qaban karaya waa nin qaran
qoys ahaan iyo qaran ahaanba muxuu ahay waa nin inoo anfacayo weeye marka soo dhoweey madaxweyne aad waxaan u soo dhaweynaynaa xildhibaanka musharaxa xildhibaan jaamac xasan khaliif waxaan filayaa deegaan doorashadiisa xildhibaanka waa Buuhoodle xildhibaanku mar hore wuxuu soo sharaxay xildhibaannimada waa maxaa sheegay ma dhicin mar labaad wuxuu soo sharaxay madaxweynaha Puntland waa nin runtii aan oran karo booska maanta ay xildhibaanada reer Buuhoodle ka soo jeeday deegaan doorashadu tahay dawladda federaalka ay gabeen waa nin aan oran karo uu buuxin karaa waxaan aad iyo aad ugu buurinayaa dadka dhammaantood ay arrimahana qusayso inuu inaga saari karo kaalinta aynu maanta ku jirno inuu inaga gaarsiin karo halka aynu mudannahay jaamac xasan khaliif waxaan leeyahay aad iyo aad soo dhawow mar labaad soo dhawow mar saddexaad soo dhawow idinla waxaan idin leeyahay fariin ha idin ahaato leexdinkii marka hore idinka leexatay mar labaad iyo idinka leexan aadna waa idin salaamaya dhammaantiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa musharax baarlamaan jaamac xasan khaliif oo aanu filayno ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland iyo caynba inuu samata bixin doono dadka samata bixinaya inuu ka mid yahay baanu halkan ku soo dhaweynaynaa mudana soo dhawow waxaanu filaynaa guul kama dambaysa inaad ku qaadi doonto insha Allah aad iyo aad baanu ku salaamayna kuna soo dhaweynaynaa si kalgacalnimo leh oo muwaadinimo leh ayaanu ku soo dhaweynaynaa waadna guuleysan doontaa wassalaamu calaykum jaamac xasan khaliif kal hore wuxuu soo istaagay leelinta hanashada hoggaanka dawladda Puntland 2019 doorashadii Puntland mar kale waxa uu taagay xilka xildhibaannimo ee dawladda federaalka Soomaaliya jaamac xasan khaliif maxamed axmed jaamac maxamed bidaanshe garow